kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha badan halka waa Bulsho Sports TV markan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha Bulsho Sports qodobada ay haayeen waxaa kamid ah Lingard ayaa u sheegay Man United inuu doonayo inuu sii joogo kooxda Leicester ayaa tixgelinaysa xiisaha weeraryahanka Celtic Eduardo Dybala ayaa mustaqbalkiisa wali la cadeynin intaasi waxa ay qodobadii wararka ciyaaraha Bulsho Sports TV haatan ku soo dhawaada asagoo faahfaahsan Lingard ayaa u sheegay Man United inuu doonayo inuu sii joogo kooxda qodobkaasi waxa ay eegay Maxamed Ibrahim Bibaye ciidanka kooxda kubadda cagta Manchester United Jesse Lingard ayaa guud ahaanba xusay inuu diyaar u yahay kulaabashada kooxda kubadda cagta ee Manchester United Jesse Lingard ayaana maamulka kooxda kubadda cagta Manchester United ku wargeliyay inuu diyaar u yahay in waqtiga kan xaadirka uu difaacdo booskiisa joogtada istaadiyaha Old Trafford ee kooxda Manchester United sida markaa daawacday jirada sana 28 jirkani ayaana awoodiisa ku soo muujiyay kooxda kubadda cagta West Ham United muddadii amaahda uu kula joogay xil ciyaareedka 2020-2021 kooxda kubadda cagta West Ham United ayaa jaanisa kala duwan siisay ciyaaraankan Jesse Lingard asagoo ka yaabsaday kooxaha ugunta ku weyn horyaalka wadankaasi Ingiriiska balse Lingard ayaa xusay in guud ahaanba uusan daneenin in waqti kale uu la sii qaato kooxda kubadda cagta ee West Ham United muhiimadiisuna ay tahay kulaabashada istaadiga Old Trafford asagoo doonaya in arrimahaasi kulaabashada ay Manchester United iyo booskiisa joogtada uu kala xajoodo tababaraha kooxda Manchester United macallin Ole Gunnar Solskjaer waxaana Lingard uu mar walba ku celceliyay arrimaha ku aadan in uu difaacan doono booskiisa kooxda kubadda cagta Manchester United ciyaareedka soo socda Leicester ayaa tixgelinaysa xiisaha weeraryahanka Celtic Eduardo Leicester City ayaa dib ugu fikiraysa dhaqaaqista weeraryahanka kooxda Celtic Odson Eduardo Daily Record ayaa sheegaysa in Leicester aysan wali heshiis la gaarin weeraryahanka Faransiiska laakiin oo wali rajo ka qabaan inay heshiis la gaaraan laakiin heshiiskaasi suurtagalka ah ayaa soo ifbaxaya kooxda Leicester City ayaa waxay isha ku haysaa u dhaqaaqista weeraryahanka RB Salzburg Patson Daka weeraryahanka reer Zambia ayaa ka soo muuqday mid kamid ah weeraryahanada ugu da'da kubadda cagta Yurub waxa uu la mid yahay Eduardo balse Patson Daka ayaa la filayaa inay kooxdiisa iska iibiso xil ciyaareedkan Dybala ayaa wali mustaqbalkiisa la cadeynin qodobkaasi waxa ay eegaysaa Qamar Maxamed Cumar Dybala ayaa wali mustaqbalkiisa la cadeynin Paulo Dybala iyo Juventus ayaa wali isku khilaafsan heshiiska kordhinta weeraryahanka sida laga soo xigtay Calcio Mercato heshiiska haatan ee xidiga reer Argentina ayaa dhacaya sanadka dambe waxana uu heshiis cusub la filayaa inuu u saxiixo Turin oo uu sanadkii ku qaadan doono adduun dhan 10 milyan oo euro Juventus ayaa doonaysa inay sii haysato Dybala laakiin ma awoodi karto inay la jaanqaado mushaarkiisa iyadoo ay kooxdu saameeyeen caabuqa dunida gilgile ee coronavirus James ayaa doonaya sii jooga Everton warbixintaasi waxa eegay Cabdirasaaq Cabdi Ibrahim James Rodriguez ayaa shaaca ka qaaday inuu ku faraxsan yahay inuu sii joogo Everton xilli ciyaareedka soo socda ciyaaryahanka qadka dhexe ee reer Colombia ayaa la xiriirinayaa inuu ku laabanayo Real Madrid kadib bixitaanka Carlo Ancelotti ciyaaryahanka ayaa qandaraaska kula jira ilaa 2022 Everton ayaa haysata fursad ay xilli ciyaareedkan kale ku sii kordhin karto Everton James ayaa yiri markii la weydiiyay suurtagalnimada uu ugu dhaqaaqi karo Real Madrid haddii aan sanadka kale sii joogo Everton taasi waa wax fiican uma malaynayo inuu Ancelotti ikaxeen doono James ayaa dhaliyay 6 gool isla markaana sameeyay 9 caawinaad 26 kulan oo u saftay kooxda Everton xilli ciyaareedkii hore Leicester City Arsenal Tottenham ayaa ciirsanaya Philippe Coutinho kooxaha Leicester City Arsenal iyo Tottenham ayaa xiriir la leh xidiga qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Barcelona iyo Philippe Coutinho iyaga oo doonayaan inuu ku soo laabto horyaalka Premier League Spurs ayaa sheegaya in wakiilka Coutinho ee Kai uu la xiriiray koox kasta oo Premier League ah ama intaba kooxaha qaar ayaa diiday rajadaas oo ay ku jiraan Manchester United Manchester City iyo Chelsea inkastoo qaar kale ay ka baxeen albaabka hore Tottenham Leicester ayaa labadaba doonaya oo ay weheliyaan Arsenal Leicester City Tottenham ayaa u soo baxay European League xilli ciyaareedka soo socda inkastoo Arsenal aysan u soo bandhigin heshiis dhab ah xidigii hore ee Liverpool
Leicester West Ham oo daawanaya daafaca Fenerbahce Attila Salai. qodobkaasi waxaa eegaya Cabdirasaaq Cabdi Ibraahim. Leicester City iyo West Ham ayaa daawanaya daafaca Hungary Attila Salai. NTV Sports ayaa ku waramaysa in Leicester City ay isha ku hayso Attila inta lagu jiray ciyaaraha Euroga ka hor inta aan la helin. warar cusub ayaa sheegaya inay u dhaqaaqi karaan xilli ciyaareedka dambe markii uu tartanka dhamaado, laakiin iyaga kaliya ma ahan kooxaha la sheegay inay xiiseynayaan Attila Salai. inta ku soo gabagabeynaa wararka ciyaaraha Bulsha Sports TV iyo aniga Aamin Cismaan waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.